warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay shil gaari oo khasaare xooggan ka soo gaaray gabdho Soomaaliyeed kaasoo xalay ka dhacay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Gabdhahan oo ka yimid mool ay ka soo adeegteen ayaa inta ay wadada socdeen waxaa dul maray gaari kaasoo sababay inay isla goobtii ku geeriyoodaan. Mid ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Minnesota wuxuu sheegay in 5 gabdhood ay 3 ka mid ahaayeen walaalo. sidoo kale wuxuu tilmaamay in gaariga dul maray uu waday nin tuuga oo soo xaday baabuurka kaasoo doonay inuu la baxsado. waxaa kaloo intaas ku sii daray in eedeysanayaasha la soo qabtay isla markaana ay haatan su'aalo weydiinayaan ciidamada booliiska. gabdhuhu Carmel iyo adeeg bay ka yimaadeen marka shil baa ku dhacay nin tuuga gaari soo xaday yaa waxa weeye kormaray gabdhaha 5 way dhinteen gabdhaha Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto oo 3 isku family ay sababsan wadada iska marayeen nin tuuga hal sheegaya hadda waa la hayaa booliisku way hayaan oo gaari soo dhacay baa gabdhaha ku dhacay oo korka ka maray marka sidaas ay dhimashada ku timid hadda waan la joognaa inta badan way joogaan inkastoo weli aan booliiska soo sideen magacyada laakiin 5 gabdhood waa la xaqiijiyay inay dhinteen. in kale oo lagu magacaabo Biixi isla markaana ka hadlay dhacdadan xanuunka badan ayaa sheegay in 5 gabdhood ay ahaayeen kuwa qalin jabi isla markaana isku diyaarinaya xafladooda balse ay la kulmeen shilka sababay geeridooda. in baabuur ku dhacay oo dhinteen Carmel agteeda waxaan u qaatay Soomaaliyiin booliiskuna waa soo wacay saraakiil Soomaaliya ay soo wacday imana ay sheegeen Soomaaliya laakiin halka dib baa ka dhacay waan in 2 saac ka hor baan imid ku dhacay qoysaskii la kulmay kulli waa Soomaali dhimashadu ma hubno oo booliisku weli ma xaqiijin laakiin waxaa la xaqiijinayaa 5 bay ahaayeen qaar waxay leeyihiin 5tooda waa dhinteen qaar waxay leeyihiin 4 baa dhimatay waalidkii baa halkan la joognaa meydkii waa halkan la qaadayaa baabuur la caysanayo ama isku u ordayay ayaa ku dhacay oo ilmuhu qaar ka mid ah graduation bay ku jireen oo hadda graduate gareeyeen oo jaamacadaha Augsburg iyo University of Minnesota iyo jaamacado badan baa qaatay gabdho fiican oo wanaagsan oo qoysaskooda yaqaano sharaf leh ahaayeen moolka way ka yimaadeen moolka Soomaalida Carmel bay ka yimaadeen xilliga graduation-ka lagu jiraa oo kala jibinta ama jaamacadaha ama iskuulaadka kulli waarid baan ahay waaridkuna waa soo naqaanaa xaluhu waa nahayaa ma naqaan waxa dhacaya habeen kasta marka accident baa dhacay gabdhahaas oo jaamacadooda dhamaystay oo jaamacadahooda hadda galaya ama qaar ay yihiin klaaska 2 jaamacadda qaarna hadda ay ku raajinayaan high school jaamacadda galayaan. Mareykanka ay ku nool yihiin Soomaali badan ayaa waxaa marar qaar ka dhaca shil kuwaasoo sababa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.